السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي waa Dictoraysa Qaadi Maxamed Xasan. Waxaan ka mid ahay kambanigan ama ganacsigan guuleystay ee TNS Business Group. Maantana waxaan diyaaro inaan ku sii warbixinta kambanigan TNS Business Group. Kambanigan aniga waxaan ku soo biiray 2020 bishii macnaha bishii 6 ayaan ku soo biiray xilliga koronaha. TNS ka hor waxaan ka soo shaqeeyay meelo kala gedisan oo ay ka mid yihiin hay'adaha gargaarka sida DRC, CSF, World Vision iyo hay'adaha kaleeto oo caalami ah. runtii ka badan 11 sano oo aan ka soo shaqeynay hay'adaha gargaarkana maanta meesha aan joogo haday noqoto moral ahaan dhaqaale ahaan runtii maanan sameyn 11 sano la soo dhaafay walaal waxaan rabaa inaan ku sii warbixinta kambanigan ama shaqadan kambanigan wuxuu ku shaqeeyaa nidaam loo yaqaan direct sale industry ama iibka tooska ama wuxuu kamid yahay shirkadaha sida directiga bulshada wuxuu uga iibiya ama bulshada macnaha wuxuu uga gadaa kambanigan maanta lagu soo casuumay waxaa laga leeyahay dalka Shiinaha kambaniganu waxaa loo yaqaanaa TNS Business Group ama Tianshi ayaa loo yaqaanaa kambanigan wuxuu bixiyaa wax loo yaqaano profit sharing plan qorshe faa'iido wadaag ayuu bixiyaa faa'iido wadaaga waxa la wadaagayo sida loo wadaagayo dhamaan casharkeena gudihiisa ayaynu ku arki doonaa laakiin dhamaan inta ayna waxa soo gelinin waxaa jira su'aalo aynu isweydiinayno oo qofka bini'aadamka maskaxdiisa isweydiinayso oo qofku leeyahay macnaha waxa weeyaan sidaan aniga dhibaatooyinkayga nolosha ku xallin karaa sidee baan ganacsi weyn ku samaysan karaa su'aalahaas waxa ka mid ah halkii ay shaqooyinka aadeen maxaa shaqo la'aantana dhigay halkan waxaad ka arkaysaa qof waayeelo leh anigu guri la'aan baan ahay qof dhalinyaro leh anigu shaqo la'aan baan ahay qof dhalinyaro soo qalin jabiyo oo dhahaya anigu waxaan macnaha waan soo qalin jabiyay laakiin now what hadda maxaan qabtaa sidaas awgeed waxaan kaloo isweydiinaynaa sidee baan xaaladahayga dhaqaale ku macnaha ku xalliya sideen hanti fiican ka sameeya sidoo kale waxaynu isweydiinaynaa sideen xaaladaha xanuunada daahay aan aniga iyo qoyskaygaba ka hortagid uga samayn karnaa ama sidee baan aniga qoyskaygaba xanuunada uga hortagnaa haddaba dad ka cabanaysay shaqo la'aan halkan waa hal aad ka abuuri karto hanti iyo dhaqaale oo aad faqrigii iyo waxa weeyaan shaqo la'aanta uga bixi karto dad ka cabanaysaan xanuunana waa halkii aad hadii Allah uu dil ogolaado hadii familigaaga iyo saaxiibo badanba aad ka heli lahaydeen fursad caafimaad oo cajiib ah runtii haddii aad sawirka dhexda fiirisid wax ka badan 137 shaqo ayaa hawada ka baxay ama noqday furnish wax ka badan 50 kun oo shaqana waxay ku jiraan khatar ama at risk ayay ku jiraan taas awgeed ma baahnid inaad ka sii shaqayso ama aad ahaato qof ka sii shaqeeyo weligii shaqooyinkii la soo qaban jiray waayo haddaad noqoto ganacsade waxaa taqaanaa ganacsadii 30 sano ka hor ganacsiga hayay ilaa hadda ganacsiga ayuu hayaa koriimo badan iyo dhaqaale badan kama muuqdo sidoo kaleeto haddaad noqotid shaqaalana shaqaale ciribtiisu waxay tahay sidoo uu shaqeynay shaqada laga cayriyo aadna subax walba u kala lahdo haddaba waxa weeyaan waxaan ku haynaa fursadaas ka qiimo badan haddaba su'aasha lagu weydiinayaa waxay tahay muxuu yahay hadafka nolosha adiga aad ka leedahay maxay tahay adiga riyadaada ma jeclaan lahayd inaad yeelato qoys qurux badan ma jeclaan lahayd inaad abaalmarin gaari qaato ma jeclaan lahayd saaxiibo badan inaad yeelato ma jeclaan lahayd inaad dalxiiso dunida aad soo booqato inaad xajiso inaad masaakiinta wax tarto ma jeclaan lahayd inaad abaalmarin guri macnaha ama guri abaalmarin inaad qaato ma jeclaan lahayd su'aalahan oo dhan micnaheedu maaha inay shirkadu free ku siinayso laakiin dhammaan waxa aan soo sheegay oo dhan ganacsigan ayaa dhexdiisa laga helaa adigoo shaqaysanaya inaad dalxiis hesho adigoo shaqaysanaya inaad gaari qaato saaxiibo badan oo ganacsiga adigu aad keentay iyo kuwa kaaga horeeyba inaad la saaxiibto inaad dalxiisto inaad cibaadaysto xajiso masaakiinta wax tarto inaad hanti dhaqaale ama hanti maguurta aad samaysato intaba waad awoodi kartaa haddaba waa sidee qorshaha faa'iido wadaaga ama sidee baan aniga kambanigu faa'iido u wadaagayna halkan waa headquarterka ama shirkadda xarunteeda weeyaan 107 iyo macnaha 10 xarumood ayay caalamka dhan ku leedahay xafiisyo ka sii baxa 110 oo 190 ayay dunida dhan ku leedahay wax ka badan 60 kun oo macaamiil ama macnaha 60 milyan oo macaamiil ayaa ku xidhan waa shirkadda 11aad ee ugu weyn shirkadaha caalamka ee nidaamkan ku shaqeeya hadaad macluumaad inta dheer ka baahatana waxaad ka fiirin kartaa website-ka hoos ku yaala haddaba aniga markaan shirkaddan ka mid noqonayo maxay ii diyaarisay maxaase aniga la iiga baahan yahay okay ko waxay ku diyaarisay alaabtii la gadi lahaa oo adiga hanti ma gelinaysid laba waxay ku diyaarisay goobtii lagu gadi lahaa oo adiga kirima bixinaysid saddex waxay ku diyaarisay qiimihii la gadi lahaa oo adiga ma bixinaysid maxaa la dhahayaa qiimaha ma jariso khasaaro kuma galaayo adiga maxaa laga rabaa bandhigid ayaa laga doonayaa ama inaad bulshada u bandhigto xayeysiin inaad u samayso inaad alaabteeda iibgeysa ayaa la doonayaa adigu insha Allah naftaada ka bilaabi doona kadibna familiga asxaabta iyo qaraabada sii gaarsiin doona haddaba kadib waxaad samayn doontaa markaad adigu bandhigida samayso kaliya ma bandhigi doontide inaad saaxiibo samaysto ehelkiya qaraabadii shirkadda ku soo xidho iyo wax way saaxiib macnaha dadka oo dhan adiguna sidaa shirkaddu ay dhaqaale ama faa'iido asbuucla ay asbuuc walba waxaad shaqaystay kugu siiso okay haddaba waxaad isweydiinaysaa
anigu saaxiibadaydii ehelkaygu waxay iskugu jiraan kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn kuwa xanuunsan iyo kuwa caafimaad qaba kuwa bukaan socod iyo kuwa jifee yaan la falgelaya ayaad isweydiinaysaa haddaba marka la fiiriyo xaaladda caafimaad ee dunida oo dhan xog ururin la sameeyey waxay samaysay hay'adda WHO ama hay'adda caafimaadka adduunka wuxuu sheegayaa boqolkiiba 75 bulshadu inay tahay bukaan socod boqolkiiba 20 inay tahay bukaan jiif boqolkiiba waxa weeye 5 inay tahay macnaha badqab ama dad caafimaad qaba haddaba adigu boqolkiiba 75 bukaan socodka waxaad kala shaqayn doontaa inay caafimaadkooda soo ceshadaan ayna isticmaalaan wax soo saarkeena kuna caafimaadaan boqolkiiba 20 waxaad kala shaqayn doontaa in ay dib u dayactiraan jirkooda aynan dib u raadiyaan inay dad caafimaad qabaan noqdaan boqolkiiba 5 waxaad kala shaqayn doontaa inay haystaan ay sii joogsiistaan caafimaadkooda dhammaantood waxaad siinaysana waynu isla arki doonaa haddii allah awooda lahu ogolaado haddaba su-aasha isweydiinta mudanaa waxay tahay maxaan aniga iibinayaa maxaan anigu gadaya waxaad gadaysaa waxaad iibinaysaa 4 nooc oo alaabooyina oo shirkadu ay soo saarto qayb waa cunto caawiyayaal ma ahan daraagis ereyga daawo markaan isticmaalo waxaa kugu soo dhacaya wax side effect leh waxaa kugu soo dhacaya wax macnaha waxa weeyaan dhakhtar macnaha uu dhex fadhiyo waxaa kugu soo dhacaya wax haddii la cuno lagu dhibaatoonayo laakiin halkan waxaynu ku hayno waa cunto caawiyayaal maxay ka dhigan tahay waa alaabo dabiiciya caafimaadka u wanaagsan jirkeenu u baahan yahay haddaana cunin xanuuna ay nagu dhacayaan haddaan cunana xanuunada aan ka gigsanayno cuntadeena laga helo cuntada haddii aan cuntadii macnaha aan cuni weynana dhibaato nooga dhacay sidagood waxay kabi doonaan caawin doonaan cuntadii aan cunaynay waxaana looga caafimaaday xanuuna maanta bulshadeenu ila daala dhacayeen oo dhikar ka mid yahay oo sonkor ka mid tahay oo waxa weeyaan kolestarool ka mid yahay oo typhoid oo qumankii oo burooyinkii oo kansarkii ilaahay hanaga magangeliyey dhammaan iyo xanuuna ka badan baa looga caafimaaday sidoo kale waxaynu haynaa waxa loo yaqaano qalabka loo yaqaano qurxinta ama waxa loo yaqaano cosmetiga sidoo kalena waxaynu haynaa qalabka loo yaqaano qalab caafimaad oo ayaguna mashiina sidoo kalena waxaynu haynaa qalab nadaafadeeda guryaha lagu nadaafadaysto geeska afrika dadka jooga ma heli karaan ama ma haystaan alaabta maxana waxa weeye shoppingka alaabta mashiinada iyo alaabta guryaha lagu nadiifiyo waxa kaliya hadda inoo yimaada geeska afrika waa alaabtan caafimaadka ayaa inoo timaada iyada ayaynu qaaradda afrika ku iibinaa laakiin websaydi ayaynu leenahay waxaan awood u yeelanaynaa inaynu online ahaan ku iibino dhammaan alaabta inta kaleeto oo inuu daafaca caalamka u iibgeyno okay haddaba marka waxa weeyaan waxaan rabaa inaan ku fahamsiiyo aragtida caafimaad maadaama alaab caafimaad baa la hayaan ku yidhi maxay qabanaysaa alaabtaasu 3 shay ayay jirkeena u qabanaysaa waxay tahay inay nadiifiso in ay macnaha wax weeyaan oo qashinka ka saarto ay nadiifiso oo qashinkii hawada ka soo galay iyo kii cuntada ka soo galay iyo kii biyaha ka soo galay iyo kii hab nololeedkii habka aan u noolnahay ka soo galayba jirkeena inay nadiifiso ayay qabanaysaa oo dhagaxii iyo kolestaroolkii iyo infectionkii iyo wasaqdii oo dhan jirka ay ka saarto qaybta labaadna waxay noo qaban doontaa waxaa loo yaqaano nafaqayn ayay noo qaban doontaa waxayna siin doontaa macdanaha iyo fitamiinada aan cuntada ayn ka weynin cuntada sababta aan ugu weynan waxay tahay habka loo kariyo oo cuntadu mararka qaarkood aan habaysnayn habkaan u cunno oo laga yaaba baashan aan jumlo u cunno iyo qaab nololeedka ama habka aynu u noolnahay oo iska liita ama dhaqaalihii oo noo saamaxaynin sidoo kaleetana ku dheelitirid macnaha waxa weeyaan xubnaha jirkeenna ayay noo samayn doontaa dhammaan jirkeenna oo dhan ayay isku dheelitiri doontaa haddii allah awooda lahu ogolaado okay haddaba kambanigan sidee baan uga mid noqon karaa seen member uga noqon karaa kambanigan markaad ka mid noqoto 4 tallaabo ayaad mari doontaa haddii allah awooda lahu uu ogolaado 4 tallaabo midda ugu horreysa waxay tahay waa inaad koonto ka furato macnaha wax weeyaan shirkadda oo aad tiraahdo anu member baa noqonaya wixii hadda ka horreysa $1 baa la bixinayay laakiin hadda waa free waxaad keliya leedahay waan ka mid noqonaya kambaniga waan rabaa kabacdina maxaa lagu siin doonaa xafiis xor ah oo micnaheedu tahay whatsapp groupkii in lagugu soo daro in lagugu xiro dhakhtarkii dawada kuu qori lahaa iyo wixii oo dhan sidoo kalena maxaa lagu samayn doonaa tababaro bilaasha oo shaqada aad ku baran doonto haddii allah awooda la ogolaado sidoo kaleeta maxaad samayn doontaa inaad wax soo saarka adigu gadato ood naftaada u isticmaasho shaqadan waxaynu ka leenahay mustaqbal fog waxaynu ka leenahay aas fog taas awgeed intaynan bulshada u gudbinin innaga ayaa isticmaalayna markaynu ku caafimaadno faa'iideeda aragno iyaynu bulshada u gudbin doonaa haddii allah awooda la ogolaado lambarka 3aad waxaa lagaa doonayaa markii aad adigu macnaha go'aankii qaadatay wax soo saarkii wixii adigu aad u baahnaydna aad gadatay faa'iidadii aragtay kadib inaad saaxiibada iyo faamiliga la wadaagto adoo online kula wadaagi karo aaladaha waxa weeyaan oo casriga ku gudbin kara sidoo kalena caadi life la kulmi kara qofkii kadibna waxaa lagaa rabaa lambarka 4 ama waxa 4 lagaa rabaa waxay tahay inaad dadkii aad la wadaagtay ku soo aqbalay wixii adiga lagu soo baray inaad bar adigoo iyadana u adeegsanaya inaad caadi ula kulanto khadkii internetka inaad ka hesho gurigaaga inaad ku ballansato marba sidii kuu roon shaqadan hal qof baad adigu tahay markaad kusoo biirayso kadibna 4 qof baad la wadaagaysaa 4tana waxaa laga rabaa inaad la shaqayso oo qof walba 4tiisu asna uu la shaqeeyo haddaba waxa adiga aad gadanayso
waa laba xirmo mid ka mid a xirmo joogta $220 ama alaab dhan $220 inaad iibsato kadibna aad adigu ku noqoto darajada loo yaqaano silver alaabtaadina ama aad dib u iibsato ama aad adigu isticmaasho iyo inaad iibsato xirmada loo yaqaano gold ama 440 aad iibsato kadibna alaabtaadina aad hesho darajadiina aad hesho alaabtina aad hesho kadibna alaabtaas adigu waxna aad isticmaasho waxna aad dib u sii waad kala iibin kartaa alaabta iskumana xirna adiga baahidaada iyo darajadu iskuma xirna hal ayaad u kala iibin kartaa marar kala gedisan baad iibin kartaa dad kala gedisanna macnaha waxa weeyaan waad ka iibin kartaa haddaba maxaan faa'iiday anu markaan ha noqdo silver markaad tahay qof walba shaqada aad ka qorto 100 ku iibiyo 15% baad leedahay haddii asagu dad kale sii qorana 10% baad leedahay waa contracti wax lagu murmaayana ma ahan mana ahan cid wax kuu soo maraaye markaad ID-ga qaadato ID-gaaga ayay kuu soo dhex mari doontaa ugu badnaan lacagta aad ku samayn karta markaad tahay silver waa $3,000 asbuucii haddii aad noqoto goldi 18% baad ka helaysaa qofka adigu aad shaqada ka qortay qofka asaga ka qorayna 12 buu ka helayaa dhaqaalaha ugu badan asbuuci aad samayn kartana waa $4,000 okay haddaba markaa sideen dad u keenaya su'aasha markan ka guuxaysaa waxay tahay aniga dad seen ku keeni karaya horta waxaan rabaa inaan ku dhaho qof walba bini aadan ah nool dad ayuu ku xidhan yahay ehel iyo qaraabiyo saaxiibo ayuuna leeyahay runtiina qof walba marka uu faa'iido helo ciduu u faa'iiday waa familigiisa saaxiibadiisa qaarna way yeelayaan qaarna way nacayaan haddaba waxaan rabaa inaan ku dhaho adigu markaad shaqada iska qorto laba qof baad shaqada la wadaagi doontaa ugu horreyn kadibna waxaad samayn doontaa inaad adiguna darajadii gasho ayaguna ay darajadii galaan kasoo qaad inaad darajada adigu qalinka ama darajada silfarka 220 adna aad gashay iyaguna ay galeen marka koowaad labadooda ay shaqada galeenba ay soo galeen 50% baad ku leedahay oo 400 ba iibiyeen $60 baad ku leedahay markan haddii shaqadan aad isku bil qabatay shaqadu waxay samayn doontaa 400 waxay samayn doontaa 200 ka mid ah min 10 kaaga qaadi doontaa kadibna waxaad heli doontaa $80 commission sidoo kale saaxiibadaadii ay dhikaara ayay heleen oo shaqada ayay bilaabeen qof walbana waxaad u ogolaan doontaa inuu shaqaysto isaguna oo team dhisto marka iyagu ay team dhisteen 4 qof ugu horeeyay shaqada ay keeneen adigu $40 baad leedahay sidoo kale maxaa dhici doona marka iyaguna kuwii kale sidoodii kala sameeyeen adigu $80 baad leedahay 8 qof ee cusub ay joogtay markay mid laba keenaan adigu 160 baad leedahay markii iyagu macnaha wax weeyaan ay 16 noqdaan ay mid laba keenaanna 320 baad leedahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay taranka teamkaaga adaa la shaqaynaya juhdi baad gelinaysaa oo dadaal baad gelinaysaa waad tababaraysaa oo juhdi baad ku bixinaysaa adigana bil walba ama asbuuc walba faa'iidaadii dhaqaale ahaan ay qaadanaysaa mar walba teamkaaga u bataan mar walba oo dad xamaasadaysan iyo shaqo fiican qurux badan aad qabataana waa mar walba commission fiican adiga aad helayso sidoo kalena iyagu ay helayaan oo qof walba xaquuqdiisa ayuu helayaa la iskumana shaqeeya halkan waa la isla shaqaystaa okay haddaad noqoto darajada goldi waa ama darajada dahabiga ah goldiga aad gadato 440 laba qof oo min 440 aad keento adigu $188 commission aad qaadanaysaa dawadina waad haystaa 188 waa haystaa darajada loo yaqaano 5 starna waa tahay labadii qof ayaa min laba keensaday 88 baad helaysaa labadii qof ayaa afartii qof ayaa waxay sameeyeen ayaa 8 qof keensaday waxaad helaysaa 176 300 iyo xoogaa 700 iyo xoogaa 1400 macnaha jajab 2,000 iyo jajab 5,000 jajab taasoo faa'iidaad u badanaysaa ama ay u sii koraysaa mar walbana wixii laba qof aad ka bilowdo ayaa saa noqon kara saasoo dad 4 qof ka bilowdo 5 qof hadaad ka bilowdo 6 hadaad ka bilowdo dad wadamo kala gedsan jooga hadaad ka bilowdo waa fursad kuu furan runtii kana dhib yar oo ka fiican inaad shaqaale noqoto iyo inaad noqoto qof macnaha bini aadan u shaqeeya intaba okay haddaba waxa weeyaan waxaan rabaa inaan kuu sheego darajada 200 lagu gelayo ama 400 lagu gelayo waa wax adiga laga doonayo kartidaadan laga doonayo waa alaab adiga la doonayo ama naftaada iyo qoyskaaga u isticmaal ama si iibiye ama macnaha wax weeyaan saad rabto u sameeye waa adiga shaqo laga doonayo aniguna waxaan u aqaanaa xaqiiqatan iskafaalaha ganacsiga sababtu waxay tahay de ganacsi bila iskafaala joogayo ma jiro maanta markaad adigu dukaan furanayso ama aad meel ganacsi furanayso iskafaalaad dhisaysaa miis baad dhisaysaa miisaan baad keenaysaa dhammaan lacag ma dhalaan laakiin maxay sameeyaan shaqada ayay qurxiyaan taas awgeed lacagtan aad samaynayso caafimaadkaagina way qurxinaysaa shaqana waad ku samaysanaysaa ee aasaaska shaqadaada ayay ku noqonaysaa haddaba darajooyinka la galo waa 4 star oo markaad darajo gashaba waad noqonaysaa automatically 5 star 6 star 7 star 8 star ilaa bronze lion darajada ugu fiican qofka bini'aadamka ku nasan karo waa darajada 8 star wixii ka sareeyo hadda aniga aan ahay alxamdulillahi rabbil caalamiin wixii loo gaaro cagaarka ama halkan greenka loo gaarana waa beerta raaxada gawaarida iyo runtii faa'iidooyinka lagu qaatana halkan laguma soo koobi karo okay haddaba walaashay ama walaalkayga shirkaddan waxaa laga qaataa abaalmarino dalxiis aniga ayaa ka qaatay dalxiiska ugu horreeya dalka China sidoo kale waxaa laga qaataa macnaha waxa weeyaan abaalmarino gawaari
gaariyaal ilaa $30,000 gaari ayaa laga qaataa kumanaan qof oo Soomaali ayaa qaadatay sidoo kaleeto waxaa laga qaataa villooyin ama guryo ayaa laga qaataa runtii waxa ugu qaalisan shirkadda laga helo waa inay saami qaybsi dunidoo dhana ay ku siiso ama saami ama faa'iido dunidoo dhan 4% dhaqaalaha ka soo galay inay ku siiso waana meesha ugu fiican ee bini'aadamku hadda u socdo haddaan ku soo xasuusiyo waxyaabihii aan isla soo marnay account pro oo shirkadda xubinka noqo go'aan qurux badan qaado tababarada oo waxa weeyaan qofkii adiga ganacsiga kugu soo cusumay tababarkii waa inuu ku bilaabaa akhri bugaagta Tianis ama bugaagteena akhri muuqaaladeena daawo la wadaag asxaabtaada soo cusub nidaamka macnaha wuxuu ku soo cusub nidaamka shaqada oo wakiilkaaga ayaa ku siin doona warbixinta sidoo kaleeto xogta macnaha waxa ganacsiga markuu ku qaato la qorsheey si darajadii ku gali lahaa ama nidaamka 4 iyo 4 ama 4 lagu dhiftay 4 nidaamkaas uu shaqayn lahaa go'aankaaga maantay wuxuu bedeli karaa mustaqbalkaaga berrito haddaba ma doonaysaa lacag inaad samayso soo biir Tianis la tasho wakiilkaaga dadaal waa macnaha hooyaan oo ilaali waqtigaaga kuwan waa dadkii 2023 shirkadda abaalmarinta cimrada ay siisay ee soo cibaadaystay haddaba waxaan ku leeyahay annagu waan ka faa'iidnay annaga ayaana soo tijaabinay waana wax laga hubo step by step kun ah oo ku salaysan insha Allah adna waxaan rajayn doonaa inaad nagu soo biiri doonto go'aan ka qaadan doonto darajada geli doonto tababarada bilaaban doonto halkaas sare ayaa inoo balana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh